kula wacan oo wanaagsan daawadayaal meel bad ku sugateen kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobada barnaamijka aynu ku faaqidi doona maanta waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Farmaajo oo ugu dambeyntii la ogaaday inuu helay siyaasiga uu ka dhigi lahaa ra'iisul wasaare cusub. haddaba waa kuma shakhsigaas oo lagu arkay xarunta madaxtooyada mas'uul si weyn ugu dhawaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo markii ugu horeysay bixiyay xogta dalkii ka dambeeyay in xilka laga qaado iyo sababaha arrinta ka dambaysa. dowladda waddanka Qatar oo abaabuladii ugu adkaa ka wada magaalada Muqdisho lana heshiisay filla Soomaaliya, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. haddaba maxay ka heshiiyeen barnaamijka aynu ku soo gudbin doonaa. dowladda Soomaaliya oo si degdeg ah Muqdisho ugu yeertay xubnihii farsamada ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee ka soo shaqeynaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa waxaabihii looga hadlay kula madaxweyne Qorqoor oo Muqdisho kula yeeshay siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wararkii ugu dambeeyay ee weeraradii lagu baabay ee ka dhacay magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan. qodobadaas aynu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena waana subax Arbacada 5 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka waddanka. haddaba daawada ka qayb qaado dibadhiska dalka anagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taana la faahtaan fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiin adinkoo ku sheergananaya baraha bulshada. aynu ku bilownay waxaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn u soo baxayay in wiil uu dhalay siyaasi si weyn looga yaqaano Soomaaliya uu noqon karo ra'iisul wasaaraha cusub ee uu xilka u wakiilo doono madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inkastoo filla Soomaaliya laga dareemayo mashquul xoogan, haddana saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxaya in madaxweyne Farmaajo uu helay shakhsiga uu ka dhigi lahaa wasiirka koobaad. dadka ku dhow madaxtooyada ayaa sheegaya in Hanad Cabdullaahi Axmed Cadow oo ku magacaaban safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Faransiiska in uu ku dhow yahay in uu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Hanad Cabdullaahi Axmed Cadow waxaa dhalay oo aabe u ah ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow oo horey u tartamay madaxweynenimada Soomaaliya 2 jeer, horeyna u soo noqday safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Mareykanka sanadihii 1977 ilaa 80 iyo mar kale uu noqday 1986 ilaa 88. deegaan ahaan waxa uu ka soo jeedaa magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan qaybta Galmudug. Hanad waa diblomaasi aqoon sare leh, inkastoo aan laga gudoomin waraqadihii safiirnimo ee waddanka Faransiiska ee ugu dhawaatan u magacaawday dowladda federaalka Soomaaliya. haddana waxaa loo arkaa siyaasi ka soo bixi kara xilka ra'iisul wasaarenimada. meelaha uu ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah howlgalka midowga Afrika iyo qaramada midoobay ee gobolka Darfur ee waddanka Suudaan, iyo sidoo kale madasha Dooxa Peace ee waddankaasi Qatar. lama oga in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay siyaasigan uu si degdeg ah xilkan ugu magacaabi doono, waxaana soo baxaya warar kale oo sheegaya in dowladdu ka hor intaysan magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub ay la tashiye kala sameynayso xubnaha beesha caalamka oo gabi ahaanba ku hungoobay in dowladdu ay aqbasho codsigooda ahaa inay kaalin weyn ku yeeshaan ra'iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabayo. 25 bishii lasoo dhaafay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si lama filaan xilka uga qaaday Xasan Cali Khayre. arrintaas ayaana xaalad siyaasadeed oo adag dalka gelisay. wixii markaa ka dambeeyana waxaa jiray musharaxiin fara badan oo u taagnaa xilka ra'iisul wasaaraha, laakiin madaxweynaha ayaa weli xulanaya shakhsigii uu xilka u magacaabi lahaa. wararka ku soo kordha barnaamijyadeena dabaayaynu ku soo gudbin doonaa insha Allah. warar laga helayo qaar ka mid ah siyaasiyiintii sida weyn ugu dhawaa ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaa waxa ay sheegayaan ama ay hadda cadeynayaan in dowladda Qatar ay ahayd dalkii sida weyn uga dambeeyay in xilka laga tuuro hogaamiyaha. sidii degdeg ahayd ee golaha shacabku uu codkii muranka ku jiray ugu qaaday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre laguna riday, iyo sidii aan la filayn ee madaxweyne Farmaajo uu u ayeeday go'aankaas, waxaa su'aalo badan ay geliyeen qorshahan iyo sida loo soo abaabulay. ma ahayn wax qarsoon in ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre uu ka soo horjeeday muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda, laakiin waxay madaxtooyada iyo guddoonka baarlamaanka oo isbahaysi ah ay ka quusteen in ay ogaadaan rabitaanka ra'iisul wasaaraha iyo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha, oo ay cabsi weyn ka qabeen madaxweynaha iyo la taliyaashiisa. labada mas'uul ayaa doonaya inay sameystaan hal xisbi oo ah xisbiga Nabad iyo Nolol, laakiin qorshahan ayaa fashil uu ku dhamaaday kadib markii labada mas'uul ay sheegeen inay musharaxiin yihiin. waxa uu tuhunka madaxtooyada ee damaca ra'iisul wasaaraha sii xoojiyey xiriirka uu Khayre la sameeyay madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka aqalka sare, iyo sida uu ugu gacan saaray qorshaha muddo kordhinta ee si weyn loo hadalhayay in ay wadeen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale guddoomiyaasha baarlamaanka, gaar ahaan guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa koobaad Cabdiweli Ibraahim Mudde. xogta la helay waxay sheegaysaa in xaalad adag oo soo kala dhex gashay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay kadib soo kala dhex gashay dowladda Qatar. ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaana safar aan rasmi ahayn ku tagay waddanka Qatar dhamaadkii bishii Juun,
balse markii uu halkaa gaaray waxaa la yaab noqotay in uu isna tagay agaasimaha nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saaxiibo dhow la ah madaxweyne Farmaajo ahna halka ay dowladda Qatar u soo marto arrimaha Soomaaliya sida uu bixiyay xogta sargaal ku dhow ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulamo xasaasi la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Qatar iyo saraakiisha dowladda Qatar ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wuxuuna u cadeeyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha isla markaana aanu dooneynin in uu muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda ama uu ku biiro xisbiga madaxweyne Farmaajo, taas oo keentay in wada hadalka uu soo galo Fahad Yaasiin la iskuna dayo in heshiis laga gaaro arrinta, balse wada hadalka ayaa fashilmay sida xogta lagu tusiyay. Khayre oo saaxiib gaar ah la ah wasiirka arrimaha dibadda Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa rajo ka qabay in xiriirkaas wax weyn uu tari doono, balse waxaa dhacday in madaxtooyada iyo Fahad Yaasiin ay maleegaan qorshaha kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyadoo taageero ka haysatay Qatar si meesha looga saaro Khayre ay warbixintu tilmaamaysa. Khayre iyo taageerayaashiisa u dhow ayaa ka warhelay qorshaha mooshinka ee qarsoonaa ee xukuumaddiisa ay ka diyaariyeen Mursal iyo Mudday galabnimadii Jimcada 24 bisha Julaay, iyadoo saacado kadibna muddo 7 daqiiqo lagu riday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xitaa golihiisii wasiirada 5 kamid ah ayaa u codeysay halka wasiiradii kalena ay ka codeeyeen. dowladda Qatar ayaa si xoog leh ugu dhex jirta siyaasadda Soomaaliya. Dowladda Qatar safiirkeeda u fadhiya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu wadaa olole siyaasadeed oo lagu taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan bin Xamsa ayaa isbuucan gudihiisa kulamo gaargaar la qaatay madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed, Hiirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waxa uu kala la kulmay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Xukuumadda Dooxo oo malaayiin dollar ku bixisa sida la sheegayo sidii talada dalka uu sii hay lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka shaqeynaysa in madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan Galmudug, Hiirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay taageeraan qorshaha dowladda ee ah in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod, isla mar ahaantaana la raaco ra'yigii amaba taladii ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka qaranka ah ee muddo dheeraad loo baahan yahay. Villa Soomaaliya ayaa xusultoob ugu jirta in go'doomin siyaasadeed lagu sameeyo maamul goboleedyada ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu horeeyaan Puntland iyo sidoo kale Jubaland sida warbixinada lagu helayo. Wadada federaalka Soomaaliya ayaa ku biirtay dalalka caalamka ee midnimada u muujiyay shacabka iyo dowladda waddanka Lebanon kadib qaraxyo waaweyn oo galgalay magaalada madaxda waddankaasi ee Beirut. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay tacsi tiraayo leh ay la qaybsanayso qoysaska dadkooda ku waayay dhacdada. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay xilligan adag garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Lebanon, waxaana alla ugu tuugaynaa inuu caafimaad degdeg siiyo dhaawacyada ayaa lagu soo qoray barta Twitter-ka ee Villa Soomaaliya. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo dhankiisa qoraal soo dhigay Twitter-ka ayaa waxa uu naxariis eebba u rajeeyay dhammaan dadka geeriyooday. Inta la xaqiijiyay 73 qof ayaa ku geeriyootay halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen kadib qaraxyo waaweyn oo ruxay magaalada dekedda leh ee Beirut, iyadoo saameynta qaraxana laga dareemay masaafooyin kale oo aad u fogfog. Maamulka Yuhuudda ayaa si weyn isaga fogeeyay inay ku lug lahaayeen falka lagu weeraray magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lebanon kadib markii ay soo baxeen ila sirdoon oo sheegaya in maamulka uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu ay iyagu falka ka dambeeyeen. Adduunka ayaa si weyn uga tacsiyeynaya waxa ka dhacay magaalada Beirut, waxaana laga cabsi qabaa in qasaaraha dhimashada inta ka bato. Wararka ku soo kordha waxaan isku dayi doonaa inaynu ka sameeyno barnaamijyo gooni insha Allah qaraxa ka dhacay magaalada Beirut ee waddankaasi Lebanon iyo sidoo kale cidda ka dambeysaba. Imikana xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa casumaad Muqdisho ugu sameysay dhammaan xubnaha guddiga farsamada ee ka baaraadagaya talooyinka la xiriira hanaanka iyo habsami socodka doorashooyinka dalka, kuwaas oo ka kooban 16 xubnood. 5 bishan ayaa loo qabtay in dhammaan xubnaha ay ku tagaan magaalada Muqdisho si loo bilaabo wada xaajoodida guddiga farsamada ee kamid ahaa qodobadii lagu heshiiyay kadib shirkii magaalada Dhuusamareeb. Puntland iyo sidoo kale Jubaland ayaana la garanayn in xubnahooda ay u safri doonaan magaalada Muqdisho iyadoo labada maamul ay weli tabanayaan cabashadii dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixgelinayo qodobadii ka soo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb looga baahan yahay in gudiyadaas ka socda 5 maamul goboleedyo ay ku soo xaadiraan magaalada Muqdisho. Gudiyadan ayaa ka soo baaraadagaya habka ay u dhici karto doorasho lagu wada qanacsan yahay, inkastoo madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la sheegay inay si weyn uga shaqeynayso doorasho qof iyo cod ee dalka ka qabato. Waa xagaag daaqwadiya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kula kulmay
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir iyo madaxweyne qoorqoor ayaa ka wada hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrinta galmudug iyo shirkii dhuusamareeb waxaan kulan tala wadaaga yeelanay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaana ka wada hadalnay guud ahaanba xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrinta galmudug iyo sida ugu habboon ee uu ku guulaysan karo shirka dhuusamareeb 3 ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweyne qoorqoor ayaa maalmahan ka waday magaalada muqdisho kulamo siyaasadeed uu la leeyahay siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda galmudug madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale danjirayaal caalami qodobkaas ayaa ugu dambeeyay daawadayaal barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya